mucaamalada waxa ku jira dhibaatooyin fara badan waxa kow ka ah shareecadu marka ay ka hadlayso iib waliba laga hadlayo sarif arkaan iyo shuruud bulay iibku guud ahaan marka hore wuxuu u baahan yahay laba dhinac oo wax kala iibsada waxa loo baahan yahay wixii la kala iibsamayay oo labadaba la hayo maxal aqdigiye haduu sarif yahay lacagtii tan iyo tanba in la hayo haduu badeecay lacag yahay tanba labadaba in la hayo u baahan qodobka koowaad qofkan macmiilka ah ee Soomaaliya jooga iyo dilaalku ma isu wakiil baa masuux bay kala iibsanayaan macnihi sida qoran waxa weeye inta badan aqdi wuxuu dhaxmaraya qofka dilaalka iyo customer marka ma iyaga wax kala iibsanaya mise dhinac saddexaad oo laga iibinayo baajira oo dilaalka adu wakiil ku yahay cid kale wax ka iibinay cid saddexaad oo la og yahay oo meel fadhida oo la leeyahay lacagtaas haysataayo ka iibin sadataada ka iibi matrix ee suuqa elektarooniga waxba kacay waxba dhacay kana dalab ku bedel kana jabay iibso way hadii la yiraahdo dilaalka wax iibinaya dilaalku ma adu wakiil ka yahay mise naftiisu wakiil ka yahay wuxuu markuu بيع يشريه لبا عاقد بالدوني لبا عيد او هشيس ودا غشا marka haduu saw ka iibinayo adna iibiyihi ba ka iibsadihi ba tahay wakiil kuma noqon karo wakiil kuma noqon karo halkaan marka waxa ka jira dib ba ka jirta waa marka la kontraadka la bilaabay waxa la kala iibsanaya aan soo noqon waxa la kala iibsanaya waa lacag baa lacag lagu iibinaya sarif wax kale ba waa baic النقد بالنقد والعقد lagu iibiyo lacagta aad iibinayso ma haysid lacagta uu iibinayo ma hayo hawa la iska iibinayo lacagta aad iibinayso hadii baid ma yahay tahay tii deynta ahay wana siday u badan tahay xeradaada iyo xerad hadii baa ku dhow oo aad gaari karto midna ku beddelto ta uu iibinaya isna waa elektarooniga bangigu amaahiyay mid uu hayo oo xere u tirta ma halkaana waxa ku buday lacagta la iibinaya lacag la hayo maaha ila wuxuu waa inuu asal leeyahay waa lacag hawada ordaysa elektarooniga dilaalka bangi amaahiya isna adigu ku sii amaahiya waxa kale iyana waxa noqotay waxaan jirin marka wixii la kala iibinayay lama hayo nabi sallallahu alayhi wasallam la tabi ma laysa indak hadith Hakim ibn Hizam waxaadan hanan oo lahayn ha iibin qodobka kale deynta uu ku siinay hadii deen lagu macaamilo faa'iido u dhalisay waxa la oranayaa faa'iido dhashay oo isagiina commission buu ka doonay hadaanu lacagta ku doonaynin wuxuu ku doonayaa wasiidka iyo dilaalka uu ku yahay suuqa adiga ka xig inuu wax ku amaahiyo iyo inuu ka qaato faa'iidana قاعده شرعيه جبينيسا كل قرض شر نفع فهو ربا اما كستو سو جيدا منفع وادي وي waxa ka soo qaada hadaba idmahayo inaan lacag ku amaahin waxa hadda qoraalada ay soo dhigayaan hadaba idmahayo meelaha qaar kood oo leeyahay sheekh waa la weydiiyo banay wax badan bay taxayaan waxay leeyihiin deyn qaadan maayo kan sameyn maayo wax inta badan suuqa aan ka jirin waayo lacagtan aad dhiganaysaa inta badan ta shaqaysan ma $1,000 oo suuq caalami oo balaayiin trillion lacag istaba marayso $1,000 awala looma ogolab in lagu galo hadii la geeyana wax alla wuxuu ka goynayaa ma jirto marka dadka qaar waxay ku celcelinayaan lacagta dilaalka qaadan maayo deyn qaadan maayo leverage qaadan maayo tayda in shaqeynaysa waa waxyaabaha ay dadka yiraahdo islaamiyaan sameeyay ay sheegayaan waxa ka soo qaada taadi ba shaqo gashay lacag dilaalayahay maad qaadan oo wahmiyo oo beenbeen maad kunkaagi ba ku shaqeynay kunkaagi waad iibis waxa siisay maanta mesela 700 oo gadiya sterling 700 waxay kaaga baahan tahay kunkii ho inaad kala hadaba idmahayo aad kala gudoontaan bay u baahan tahay lacagta noocan suuqa lagu sarifaa xitaa hadii taali xaqiiqiga ay tahay
sarifkeedu wuxuu ku soo gaarayaa nidaamka caalamiga laba maalmood kadib haddii maalmo fasax la galana oo مثلا jimcaha iyo sabtida iyo axadda sida loo kala duwan yahay ee dhaqamada iyo diimaha caalamka haddii ay maalmaha ku beegantana 5 casho kadib baa lacagtii bedelka ahayd waa haddii taadu ku shaqaynaysa gudoomiska sharcigu ma ogol yahay lacagtaadii aad sariftay aan ku soo gaarin in horta sarifkaas ma ansaxayeen waa maya macnaheedu taadu waad bixisay tiisi ma haysa ma gudoomi iyadoo taas jaban tahay oo hadee ba idmahayo sarifkii hore aanuba ansixin yaa waxa dhacaya inaad mid labaad iibiso gidiga ku soo gaadhay bad iibinaysaa hadee ba idmahayo oo yan siinaysaa iyana bi'maalam yuqbad waxa la qabdoonin in la iibiyo bay noqonaysaa nabiga sallallahu alayhi wasallam naha an tubaa as-sil'u haythu tubtaa hatta yuhuzaha at-tujjar ila rihali waadida in la gado bay'ada meesha lagu gato ilaa wadihi loo qaato waa bay'a caam ahaan markuu sarif yahay waxa ka horeysay maba ansaxaya bay'u hadaydan hoo iyo hoo ku kala gudoomin hal masalan ku daraya insha Allah ta'ala bas maxaadir badan bay leedahay oo diktoorku iga dambayn doono laakiin hal masalan doonaya oo farqarday tilmaamay inaan xoojiyo waa mas'alada qabdiga xukmiga ah qabdiga iyo gudoonka dahabka iyo fidadu wahaan ama yadan biyadin sida xadiisku sheegayo حديث عبادة بن الصامت عند صحيح مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبطن بالبطن والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت الأصناف وبيع كيف شئتم إذا كان يدا بيد حتى هذيك لدويه اللبضة العقود هو يهود والغا مرماوي سيدا الصحدة صرفكو قدون كيس وين العق حقيقة الاستابسيتها waxaa jirta culimada qaar inay dhayn qayb qabdi xukmi ah yaani waxaa jira gudoon aan hoo iyo hoo ahayn laakiin laga soo qaaday inuu hoo iyo hoo yahay waa kee waa ka lacagtaada ilbriqsiga ba aad kala bixi karto account مثلا waxaad iibisay door waxa lagu siiyay مثلا hadee been mahayo gini sterlinia marka laxdadaba uu ku dhaco ama ilbriqsiga lacagtu akan ku dhaco say sheegayaan ay ka muuqato waa inaad kaarkaaga intaad gashan karto mishiinada iyadoo lacagtii kaash oo cadaan aad soo daadsan karta la soo bixi karta ama bangiga hadaa taagan tahay oo leeyahay way ku soo dhacday si aad uga ku siin karaa kan ay ka hadlayaan ilayhiin lacag ba halka ku dhacday way ka baxday intaas ku birtay qabdi xukmiya oo sarifku ku socon karaya ma aha waxay culimadu yiraahdaan waa qabdi xukmiya oo ibtidaa'i ama waa qeyd ibtidaa'i macnaheedu waxa weeye waa diiwaan gelintii hore ee lagu diiwaan galiyay inaad faa'iiday waxa laakiin iyadii ma waxaana daliil u ah laba casho kadib mooyee ma qaadan kartid hal masalan ku soo khatimaya oo ragga ka shaqeeya markaan in badan ka wada hadalay waxay dhahay anagu waxaanu isticmaalnay system ku xiran shirkad Kenya ah oo isgaarsiintooda M-Pesa oo sida saadka u shaqeysa markaan ku dhacdo lacagteedii waxaan kula bixi karaa ama lacagta Kenya shilin ama waxaan kula bixi karaa doolarka Mareykanka waaya dib male tareedkii koowaad sameysay lacagtii waa marka lacagtaad ku shaqeysanayso kii koowaad baad sameysay gini baa ku soo dhacay giniga waxaad iibin kartaa isaga la bixi karto waxa la baxaysa waa maxay hadiiba lagu ogolaaday in markaba qaadato wuxuu la bixi karayaa oo two base ka dhigtay oo maxay ahayd lacag doolar ah waayahay marka labaad gacanta labaad waxaad iibinaysaa madoorba mise waa gini sterlinia bay waxaad iibinaysaa gini ila gini baad haysatay marka waxaad qaadanayso iyo waxaad iibinaysaa wax isla maaha sida darteed waxaad iibinaysaa ma haysid واحد يمينه ما هيسد إلهي سبحانه وتعالى وحنا كبرنا فهمك الله نواسعيه